ay can u diiday sidaasi awgeed xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa go'aan cad ku gaadhay in ay kala noqoto shirkada DMP World maareynta iyo maamulka marsada Doorale Continent Terminal oo imika wixii ka dambeeyay xukuumaddu u xil saartay shirkad lagu magacaabo SGTD in ay gacanta ku dhigto maamulka marsada idilahanteed shirkada SGTD ayaa ah mid dawladda Jabuuti ay leedahay 100% maamulkeeda waxa hadaba arintaasi faahfaahin dheeriya inuu hadaba ka dhageysan doonaan imika waa gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane Abubakar Umar Xaddi oo aynu waraysi la yeelanay isagoo ku hadlaya magaca wasaaradda gaadiidka waxaana weli maanta dawladda Jabuuti waxay garatay in maamulkii dekada Doorale oo Doorale Continent Terminal loo yaqaano maamulkii inay ka qaado shirkadii maamuleysay oo shirigan ahayn oo DP World maamulkii dekada waxa lagu wareejiyay shirkad cusub oo la yiraahdo Société de gestion du terminal à conteneurs de Doorale oo 100% ay leedahay dawladda Jabuuti arinta waxa sababay oo keenay waxa weeye markii qolada shiriga aan nahay oo DP World oo kule Doorale Continent Terminal 330 dawladda Jabuuti ay leedahay 760 aan maamulkii aan niri iyo heshiisyadii waxaan ka bedelo oo ay tan naga dhageysan waayeen anagoo taa ka wala hadlaynay 6 sano u dambeysay waxba way naga maqli waayeen waxa kamida waxyaabaha ay dawladdu doonaysay in wax ka bedesho anakoo ah majority-gi actionnaire-ka in aan handana yeelano vote minoritaire-ka iyo ku yeeshanay ku minoritaire vote-ka majority-ga yeeshan iyo takalo qabasi daran oo ah in dawladda Jabuuti ay dhisi karin horumarin karin dekad wadanka Jamhuuriyadda Jabuuti iyagoo qolada DP World iyaguna wadanada jaarka iyo wadanada kale ku yaala badda cas ka maalgeliyay ka dhisay boorar oo tiro badan oo tartanna kula jira dekedeena marka waxay dawladdu ay arinta u aragtay inay tahay wax taabanaysa sovereignty-ga dalka oo ka qaadaysa xaqi ay dawladdu u lahayd iyo dadka kale oo wadaniga amba kuwa ajaanibka inay maalgelin ku sameeyaan dalkeena sida daraadeed dawladdu shirkadaas ay abuurtay oo maanta ku wareejisay maamulkii dekada qoladan DP World oo nalale Doorale Continent Terminalna waxa la wixii ka galay meesha dawladdu diyaar ayay u tahay inay u celiso wixii indemnisation amba magdhaba oo ay xaq u leeyihiin na dawladdu